بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin u baahan in lagu baraarugsanaado xal waafiyana ay tahay in laga gaaro muuqaalkan nooxda u socda muuqaalkii kale ee ka horeeyay dhamaystir buna u yahay mowduuca miiska inoo saaran waxa weeye ma ilowdaa muddo dheer kadib duruustii aad soo qaadatay iyadoo xitaa laga yaabo inaad shahaado haysato waxaan aaminsanahay inay tahay arrin u baahan in xal loo helo sababtoo ah aqoonta la ilaawayo waxaa ku baxday tamar waxaa ku baxay waqti kharash ayaa ku baxay cilmiga intaasoo idil ay ku baxeen ma isleedahay wuu istaahilaa ama wuu mudan yahay in si fudud loogu ilaawo dhammaantii gaar ahaan siba markii la taagan yahay culumta waaweyn sida caafimaadka iyo culumta kale ee ay ahmiyadda ka wada siman yihiinba cilmiga caafimaadka ama dhakhtarnimada ayaan tusaale ahaan usoo qaadanayaa taas macnaheeduna ma aha in fariintani ay ku socoto ardayda barata cilmiga caafimaadka oo keliya sidoo kale waa fariin ku socota dhammaan ardayda waxbarata nooc kastoo ay isugu jiraanba waqti xaadirkan waxaa maragma doonto ah inaad ilowsan tahay wax badan ood ku soo qaadatay fasalkaagii hore haddii aanad ahayn qof wax bilaabaya hadda ilowshiyo ama inaad wax hilmaamto ma aha wax ugub ah ama canaan loo adeegsan karo si looga adkaado waa shay dabiici ah oo uu Ilaahay nagu abuuray waxayna ka mid tahay daciifnimada bini'aadamku waa karaamaysan yahay maskax uu ku fikirana waa leeyahay sidoo kale awood buu u leeyahay inuu fikradihiisa ka soo dhex saari karo waxyaabo la taaban karo laakiin sidaas oo ay tahay haddana waa daciif wax walba faraha looma wada gelinin sidaas daraadeed ceeb ma laha in wax la ilaaway waxa ceeb noqonaysa in dadaalkii iyo xalkii ciladaas lagu yareen lahaa laga shaqeyn waayo wax la naqtiimi waayo waliba sidoo ugu habboon wax loo naqtiimi waayo siiba markii la xoogan yahay ee dhalinta leeyahay ceeb ma laha in la kufo balse waxaa ceeb noqonaysa in la soo kici waayo iyadoo aysan jirin sabab awooddaada ka baxsan oo kugu kalifi karta inaad soo kaban weydo haba iska dheeraato muddada ay qaadan karto dib u soo kabashadu soomaaliduna waxay tiraahdaa aradnaani waa dan uskagse waa doqonimo haddii sida shimbiraha aan loo duuli karin orodka ayaa la doorbidaa haddii la carari kari waayo socodka la beegsadaa haddii socodka laftirkiisa la kari waayo guurguurashada adigu shayga ugu muhiimsan waa inay jirtaa wax hore ku socodsiinaya sidaas ay yiraahdaan wixii aad soo qaadan jirtay oo aad soo akhriyi jirtay oo soo baran jirtay muddo kadib waxa ku bilaabanaysa dildilaac marba marka kasii dambaysa soo siqaaya arrintaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha nusqaamiya tayada aqoonta ardayga iyadoo dabcan aan la ilaawi karin oo ay xusid mudan tahay in shayga xusuusta la yiraahday uu yahay mid lagu kala fiican yahay laakiin ogow haddana ilowshiyahana bini'aadam ayaa loo yahay su'aashu haddaba waxay noqonaysaa sidee ayaa looga hortagi karaa ama loola tacaali karaa inay dib u daataan wixii waqtiga iyo juhdiga lagu soo bixiyay fahamkoodii iyo akhrintoodiiba kuwaasoo haddii la isku dayo in xitaa dib loo muraajaceeyo mararka qaar ay macquul tahay inay kaa qaadato waqti la mid ah ama ka agdhow xagga dhererka isla waqtigii ay kaa qaadatay markii aad isku cusbaydeen cilmigaas ama maadadaas aad muraajacinayso su-aashan jawaabteedu iyo xalinteeduba waxay ku xidhan tahay inaan fahamsannahay wax la yiraahdo forgetting curve muuqaalo badan ayaa ku jira dabcan YouTube oo looga hadlayo fikraddaas waad soo daawan karaysaa muuqaal kale ayaan aniguna insha Allah uga hadli doonaa haddaba forgetting curve waa cilada aan doonayno inaan ka adkaano anagoo isticmaalayna farsamo la yiraahdo SRS ama Spaced Repetition System fikradda la yiraahdo SRS waa fikradda lidka ku ah forgetting curve ee loo baahan yahay in loo adeegsado dhibka jira sida ugu fiican ee fikraddan SRS loo dabaqi karana waa in la isticmaalaa wax loo yaqaan flashcards sida ugu fiican ee loo dabaqi karo isticmaalka flashcardskana waa in la beegsadaa applicationska lagu dhex sameeyay
flashcard systemka sida Remnote, sida Quizlet iyo Anki. barnaamijyadaas aan soo sheegnay iyo barnaamijyo kale oo la midaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada lagu daaweeyo ama lagula tacaalo ilowshiyaha badan marka ay waxbarashada tahay. Anki waa mid ka mid ah barnaamijyadaas aadka loogu isticmaalida badan yahay. wuxuu isticmaalaa laba farsamo oo kala ah active recall iyo spaced repetition system. arday kasta ayaana isticmaali kara heer kastaba ha joogay, sida dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare ilaa heer jaamacadeed iyo wixii kor u sii dhaafsiisan. xad ma laha. waxyaabaha uu barnaamijyada kale uga duwan yahay barnaamijka la yiraahdo Anki waxaa ka mid ah inuu bilaash yahay horta. sidoo kale waa barnaamij offline ah, wuxuuna ku shaqeynayaa mobile nooc kastaba ha ahaado, Android iyo iPhone. inkastoo iPhone-ku lacag yahay oo markaa soo degsanayso lacag lagu weydiinayo. sidoo kale wuxuu leeyahay software computer version ah oo aad u isticmaali karto si la mid ah sida mobilka oo kale. waxaa xusid mudan barnaamijyada kale ee la midka ah Anki iyaguna inay astaamahaas ku sifaysan yihiin in badan oo ka mid ah, balse Anki wuxuu leeyahay agabyo iyo farsamooyin aad si fudud u isticmaali karto. saa awgeed isaga ayaa la doorbidaa oo isticmaalkiisana lagu raaxaysan karaa. faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay barnaamijkan waxaan ku soo koobi karnaa si guud ahaaneed ilaa 3 qodob oo waaweyn. mid kastoo 3daas qodob ka tirsanna miisaankiisu la culus yahay. qodobka ugu horeeya waxa weeyaan wuxuu xoojinayaa awoodda aad ku xusuusnaan karto cilmi aad muddo dheer soo qaadatay. Soomaalidu waxay tiraahdaa jilbo geel jiray kolba dhinac ayaa qaawan. laga yaabaa inaan ku fiicanahay sida imtixaanka dhibco waaweyn looga keensado, balse ay igu adag tahay wixii dhowr sano kadib aan soo qaatay oo imtixaanka aan ku soo galay inaan xusuusan kari waayo, iyadoo aan soo qaato haddana imtixaan aan ku soo galay oon soo bartay in badan oo ka mid ah. haddana waxaa laga yaabaa inay igu adkaato inaan dib u soo qaadan waayo. intaas waxaa soo raacda haddii aan hadhow go'aansado inaan dib u muraajaciyo duruustaas, waxay igu kalifi kartaa inaan ku bixiyo waqti ka agdhow ama la mid ah xagga dhererka isla waqtigii ay igu qaadatay markii uu igu cusbaa ayaan baranayay. Anki markaa wuxuu kaaga filnaan doonaa culayskaas. taas macnaheeduna ma aha inaan dhaho Anki ayaan usoo wada guuri doonaa oo aan isku halayn doonaa marba haddii aan waxyaabahaas oo idil aan ka helayo. waxaan kuu sheegayaa barnaamijka la yiraahdo Anki iyo barnaamijyada kale ee sidiisoo kale u shaqeeyaaba waxay si weyn uga qayb qaadanayaan oo kaliya jawigaaga waxbarasho. Anki markii loo eego wuxuu isbedel ku sameyn doonaa saameynta ka dhalata inay casharadu isku dulbataan, in si fudud lagu ilaawo imtixaan kadib duruustii la soo qaadan jiray ee farakuhaynta mudnaa, iyo sidoo kale inuu kuugu roonaado dhibcooyin waaweyn xagga imtixaanka haddii uusan 100% ku gaarsiininba. marnaba ha u fahmin inuu 100% buuxinayo kaalintaadii ku aadanayd inaad fahamto casharka fahamkiisa iyo diyaarintiisu adigay ku saaran tahay. haddii aan sawir guud ka bixiyo si aan kuu dareensiiyo hawlkarnimada barnaamijka loo yaqaano Anki, inaad baabuur ku safarto iyo inaad diyaarad ku safarto labaduba waxay ku geyn karaan magaalada Hargeysa. Anki waa sidii diyaaradda oo kale oo wuxuu kuu sahlayaa inaad soo gaabiso waqtigii kaaga bixi lahaa inaad xogta maskaxdaada geliso. wuxuu soo gaabinayaa waqtigii ku bixi lahaa inaad imtixaanka diyaariso. wuxuu soo gaabinayaa waqtigii kaaga bixi lahaa inaad dib u muraajiciso waxyaabihii aad soo dhaaftay ee casharaha. marka aan leeyahay waqtiga ayuu soo gaabinayaa, waxaan uga jeedaa qabashada hawlahaas. halkii markii hore ay kugu qaadan jirtay inaad ku dhamaystirato waqti dheer, Anki haddaad kula isticmaasho qabashada hawlahaas, waqtigii badnaa ee markii hore kaaga bixi jiray qabashada hawlahaas hadda wuu soo gaabanayaa. muddo kooban ayay kugu qaadanaysaa inaad ka salgaadho qabashada hawlahaas. qodobka labaad ama faa'iidada labaad ee uu xambaarsan yahay barnaamijka loo yaqaano Anki waxa weeyaan wuxuu kor u qaadayaa dhibcaha aad ka keensanayso imtixaankaaga haddiiba uusan 100% ku gaarsiinin.
way dhacdaa oo dabcan waa la arkay. baaxadda iyo xajmiga ay leedahay ama xajmiga ay leeyihiin dhibcaha imtixaankaaga lagu diiwaan geliyo waxay go'aamiyaan inaad hesho waxyaabo dadka kale aad uga duwanaan karto, sida inaad hesho minxooyin heer sarreeya oo kale, inkastoo darajadu aysan muhiim ahayn oo 100% ka turjumi karin hawlkarnimadaada dhabta ah ee kuu qarsoon. yacni waxaad arkaysaa qof dhibcooyinkiisu ay dhexdhexaad yihiin haddana ka hawlkarnimo badan qof kale oo ay dhibcooyinkiisu aad u sarreeyaan 90%, 95%. intaa waxaa sii dheer oo qodobkan soo hosgalaya maalmaha imtixaanka ah dareenkaagu waa uu ka durugsan yahay ardayda kale ee aan u saaxiibka ahayn isticmaalka barnaamijkan. natiijada kuu soo bixi kartana waxaad sii saadaalin kartaaba ama aad sii daalacan kartaa ka hor inta aadan imtixaanka gelin ka hor. oo Anki wuxuu leeyahay muraayad, yacni aad isku daawan kartid ka hor imtixaankaaga si aad u qiimeyso heerka aad taagan tahay iyo diyaar garowgaagu sida uu yahay. dabcan wax khiyaali ahna ma aha, insha Allah waa sharxi doonaa waxa ay muraayadaasi tahay. faa'iidada saddexaad waxa weeye ee barnaamijkani maaragtay xambaarsan yahay, waxaad ka maarmi doontaa inaad xilli kasta soo qaadato buugga weyn ee muqarrarka ah, dabeedna aad maalin kasta ku celceliso mowduucyo aad dhowr jeer soo qaadan jirtay ama aad soo akhriyi jirtay. waqti dheer inaad casharo badan ku akhriso iyadoo laga yaabo markii aad dhammayso wax akhrintaada inaad dib u xusuusan weydo isla markaasba adigoo meeshii fadhiya wixii aad akhrinaysay intoodii badnayd ama qaybo badan oo ka tirsan. waxaa ka fiican inaad waqti kooban ku akhrisato mowduucyo badan oo 90% ilaa iyo 100% xusuusnaan karto. saddexdaas qodob ee aan soo sheegnay waa saddexda qodob ee aasaasiga ah ee uu xambaarsan yahay barnaamijka loo yaqaano Anki. iyadoo ay sidaa tahay haddana waxaa jira faa'iidooyin kale oo laga soo dhiraandhiiriyey oo ku dhex qarsoon saddexdaas qodob ee aan soo sheegay. waan awoodi karay inaan iska dhaafo maadaama ay saddexdaas qodob calooshooda ku jiraan, laakiin haddana waxay ila ekaatay inay qurux badan tahay, inay muhiim tahay inaan si gaar ah u soo muujiyo iyaga. waxaana ka mid ah haddii arday fasalka ka tirsan uu xanuunsan yahay isla markaana uusan soo gaari karin fasalka asbaab jirta awgeed, duruustiina uusan la socon karin, imtixaankiina uu soo dhow yahay, waa xaalad cakiran weeye. isagoo kaashanaya barnaamijkan wuxuu ku diyaarin karaa barta uu joogo isaga oo aan taabanin wax buug ah iyo culayskiisa. kaliya wuxuu u baahan yahay qofkaasi in fikrad guud laga siiyo casharka 1 mar ama 2 mar iyo wixii la mid ah si fahamka casharkaas looga dhaadhiciyo isaga. faa'iidada labaad faa'iido labaad ma dhihi karo, laakiin waa faa'iidooyinka waxay ka mid tahay sida gaarka u muujinayo, laakiin ku dhex qarsoon caloosha saddexdaas faa'iido ee asaasiga ah ee aan soo sheegnay. wuxuu ka hortagayaa inay casharadu isku dulbataan, taasoo keeni lahayd hadhow markii imtixaanka loo dhowaado inuu ardaygu dhafro iyo inuu imtixaanka hubanti la'aan ku galo. fiiro gaar ah haddii aad sidii loogu talagalay u isticmaali weydo barnaamijkaas, waxaad seegi doontaa ama aad waayi doontaa wax badan oo faa'iidooyinkiisaasi ka mid ah. fadlan haddii aad danaynayso barnaamijkaas oo sida aad dareemi karto noqonaya markii si loo fiiriyo inuu yahay mid nolosha iyo horumarka qofka saameyn fiican ku leh, waxa lagaaga baahan yahay waa inaad ka go'naanshiyo buuxa u muujiso, sababtoo ah wuxuu u baahan yahay la qabsi. waxaa warbixin lagu hayaa walow uu faa'iidooyinkiisaas leeyahay, haddana in badan oo ka mid ah ardaydu ma jecla oo way ku adag tahay inay isticmaalaan barnaamijkan. intaasna ma aha dabcan wax lagu nici karo. ma ogtahay inay jirto qaacido ah in wax walbo khayr iyo wanaag leba qabashadiisu ay adag tahay. jannada maxaa lagu hareereeyey? jannada waxa lagu hareereeyey wax kastoo naftu ay dhibsanayso, naartana waxa lagu hareereeyey wax kastoo naftu ay jeceshahay. intaasoo idil waxaan uga jeedaa marnaba ha u joojinin culayska kaaga imaanaya la qabsiga barnaamijkan. nafta waa in la baraa
tus oo dareensii naftaadu inay jiraan kumanaan arday ah oo barnaamijkan ku dheefsaday YouTube-kana laga heli karo qaabka ay u cabirayaan dareenkooda ku aadan isbeddelka ay la kulmeen isticmaalkiisa kadib. Asalaamu calaykum waraxmatullahi